kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka muuqaalka ee VO qayb kamida oo idinka imaanaysa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. barnaamijka waxaa marti ugu Leila Cali cilmi oo gabar Soomaaliyeed oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Ingrid ee magaalada Gothenburg ee wadanka Sweden. Leila waxa ay booqasho ku joogtay magaalada Minneapolis iyadoo qaar kamida bulshada Soomaalida dadka Soomaalida ee siyaasadda ku jiray guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ee gobolkan intii ay karto la kulantay. Leila waxaan jeclahay barnaamijkan aan ku soo dhaweeyo isla markaasina aan ka wareysto nolosha dadka Soomaalida wadanka Sweden qaasatan magaalada Gothenburg waxyaabaha ku dhaliyay in ay xilkan golaha baarlamaanka ee wadanka Sweden oo haatan u tartamayso ku keenay inay u tartanto iyo waliba umuro kale. Leila ayaan jeclahay barnaamijkan aan ku soo dhaweeyo soo dhaw. Walaal mahadsantahay waa dhawaa. Leila waxaad hadda kamid tahay golaha deegaanka ee degmada Ingrid waxaad doonaysaa inaad ka mid noqoto musharax u tahay golaha baarlamaanka ee wadanka Sweden inta inaan u tagin dabcan socdaalka aad gobolka Minnesota ku timid waxaad iga warantaa goormaad golaha deegaanka ee degmada Ingrid ka mid noqotay maxaase kugu dhaliyay inaad siyaasadda gasho siyaasadda asal ahaan waxay igu dhalisay inaan galo maadaama aan ahaa qof siyaasadda xiiseeya dadku sidaan macnaha dadku bini'aadamka waxay xiiseeyaan waxyaalo kala duwan qaar baa kubadda ciyaar qaar baa dabaasha anigu hobigayga siyaasadda ay ahayd xisbigan ka tirsanahay ayaan ka mid noqday wadanka Sweden sideed xisbi waa ka jira mid kamid ah ayaan ka mid noqday muddan ka soo dhex shaqeeyay dabadeedna waxaa la magacaabay golaha deegaanka Ingrid ayaan fursad ku helay inaan ka mid noqdo ilaa 2014 ayaan hadda markaa waxa la ii magacaabay marka golaha deegaanka ee degmada Ingrid doorasho lagu ma yimaadameen looma tartamo xisbiga dhexdiisa ayaa laga codeynaya min shacabka kuma codeynaya laakiin xisbiga shaqadii aad ka qabato iyo sida lagu arko holkarnimadaada ay ku xiran tahay iyo xubnaha maadaama hadii xisbiga dhexdiisa booska aad rabtid ay dhowr qof rabaan xisbiga member buu leeyahay wuxuu leeyahay dad xisbiga ka tirsan dadka ayaa idin codeynaya qaabka noocaas kale gabar Soomaaliyeed oo ku kortay wadanka Sweden muddo deganeed halkaasi dad badan oo Soomaaliya oo waayihii dambe wadanka soo galay ayaa gobolka dabcan magaalada degan sidee lagu arkay in aad ka soo dhex baxdo dadkii wadanka u dhashay isla markaasina xil aad ka dhex qabato runtii aniga Soomaalida xagga joogto bulshada horta aad u jecel baan nahay dadkeeni hore ee wadanka degnaan inta badan dad iswada garanaya oo meel ku wada koray oo meel wax ku wada bartaan nahay runtii macnaha waa qofkoodii oo wax noqday waay marka wax saas macnaha wanaag mooyaan wax kale oo aan kala kulmay ma jirto marka muddadii hadda aad golaha kamid ahayd dabcan xaafadda degan tahay ama degmadan Soomaali badan baa ku dhaqan sida aan ka warhayo noloshoodii dhinaca waxbarashada caafimaadka waxyaabaha aad maadaama dadku u baahan in dad matala ay ku yeeshaan golayaasha siyaasadda dad badan oo Soomaali ahna ay meesha degan yihiin waxyaabaha aad ku dhaqaaqday ama aad isleedahay dadkaad waxbay u tarayeen oo golaha deegaanka ma ka dhaadhicisay ama golaha wada qabtay maxaa kamid waxyaalo badan oo qabanay baa jirta hadda waliba anaga inta badan waxaynu isku daynaa inaynu u helno dhalinyarada goobo ay tagaan xilliga markay iskuulka ka dhamaadaan xaafadan degmadan deganaa degmo ajaanibta ku badan tahay weeyaan waa degmo rabshaduna ay ku badan tahay oo haday noqoto droogada iibkeeda haday noqoto ciyaal suuqa sidoo kale u gala markii inaan u helno ciyaalka facilities ay tagaan meel goobo ay tagi karaan oo ay joogan dad mas'uuliyiin ah oo inagu aan shaqo siinay oo ciyaalka noo ilaalinay horta wax qabadkaas kamid ah waxa jirto sidoo kale degmadan ka tirsanahay xaafad kamid ah waxa la dhahaa Markulan library ba ku ooli jiray xaafad walba waxay leedahay suuq yar library-ga waa waxa xubin muhiim ah ka tahay degmada way ciyaalkii wax ku akhrisan ciyaalkii tagaya dadku aan wax qori karin wax akhrin karin dadka luqadda ku adagtahay mucaawimado badan laga helaa markii in la xiraa la damcayo dadkii ka shaqeeyay ayaan nahay in aan la xirin sidii adeegaas bulshada meesha ku nool aan loo baabi'in marka waxyaalo badan oo halkan lagu soo koobin karin ayaa jira hadda waxaad u sharaxan tahay golaha baarlamaanka ee wadanka Sweden dabcan waa shaqo ka weyn taad joogto ka culus ka hawl badan maxaad ku dooratay inaad tartanka gasho runtii tartankaasi horta qof fursad haduu helo fursadda la wadiida horta marka waxa aliga waxa shima fursaddan markuu gooraysa helay oo fursadii waxa waa qofka xisbiga markuu muddo ka soo dhex shaqeeyo
you get a nomination automatically xisbigaaga ayaa macnaha ku endorse gareynaya oo aad ka helaysaa macnaha fursadii aan xisbigayga ka helay anigoo siyaasadii muddo ku soo dhex jiray anigoo u arka ummadda Soomaaliyeed hadaan nahay inaan u baahannahay matalaad xagga baarlamaanka oo inoo qalma marka waxyaalo badan baa isbiirsaday anigana fursadda aan helay waa ka ajiibay xisbigaaga marka meeqa kursi ayay u tartamayaan si ay ku helaan matalaadda guud ee dalka xisbigayga hadda 25 kursi uu ku leeyahay baarlamaanka Sweden 25 ka kursina dad kala duwan baa u tartamaya goorma doorashadu ku beeganta waxay bilaabanaysaa Agoosto dhamaadkeeda waxayna ku egtahay bisha 9-keeda bisha 9-keeda la soo gabagabeynaya degmada aad ka tartamayso marka ama deegaanka magaalada gobolka waxaad ugu yartaanba imisa kuraas baa banaan oo ku tartamaysaan mee qof aad ku tartamayso aniga xisbigayga mise xisbiyada oo dhan xisbigayga 2 kursi marka labada kursi baad dadka u tartamaya kamid ah sax gartay gobolka Minnesota booqasho ku timid jaaliyad fara badan oo Soomaaliya degan dabcan dad Soomaaliyeed oo deegaanadan ay ku nool yihiin xisbiyada gobolka kamid oo la doortana way jiraan ujeedada ugu weyneed ee gobolkan u timid maxay ujeedada ugu weyneed aan gobolkan ku imid waxa waaye horta anaga waxaan nooga duwantiin waxaan haysatiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku soo baxay cod Soomaaliya anaga Soomaali kaliya laakiin xogeed Soomaalidu qayb weyn bay ka tahay beeltahay oo cod kale oo ajaaniba waa hesheen oo aad ku baritaarteen laakiin hadii aan codka Soomaalida haysateen codkan kalena meedan hesheen horta taas waa u imido inaan horta dadkii la doortay inaan horta aan wareysano aan dhaho horta hawl sayidinkeedin hawshan idin kugu dhacday maxaa khibradoo leedin ka faa'iideysan karaa inaan anaga ummad ahaan wixii aad nooga hormarteen waayo bulshada halkan jooga aad bay uga hormarsantahay bulshada Soomaaliyeed ee Sweden joogta wixii dadaala iyo wixii fikrada iyo wixii horumar aad gaarteen inaan ka qaadano oo wixii wanaag ah wala saga daydaa baa leeyahay gartay intii marka aad joogtay yaad saragteen dadka Soomaalida ee mas'uuliyiinta ee gobolkan jooga ilaa hadda anigu waxaan saragnay wiilka dhalinyarada ay leeyahay عبد ورسمة وانسرقنا وقت ووضع هذا اللي مسؤولين كلهم نون سومالي هين وانسرقنا سيدا مايركا دوق مقالة دا مينيابوليس جايكوب فري يو داد بدونو سوماليا دو أنا politicians هين لكن مسؤولين waxyaabaha marka dadkaas aad kala noqonayso oo ay kugu soo kordhiyeen aad salaadahay taaba galbay ku noqonayaan maxay haddaan la isku dayin lama helo horta waa muhiim inaan isku dayga sameeyno هذه أو مثلاً أيقوب هذا يصاب حين سكود ضيان ماشي يجوجان أدنى عد سكود ضيان إناد وحي هلي كريس وسوق بقبلنا برامج وحبضنا لقى هلا إن ضدك الصوماليات قرب جوكتا دباتوين فربضن أي لكل بمثلا ضدك يوروب كل قناة وكله وأنا سياسة دا ودمدا سأفر فرنين سدة مريكان كوكله ومركز قارئ دعكرت عنصري ذا اعتماده قبل مسلنا تاعي حجاب حرن ودن كسويدن أو كم إذا مالها حزبية عنصريين واللي بقى كجيران وسعد وحلان بعد دور الشقة جرتا قلت دي كان لقو دورتي sidee dadka Sweden ku arkaan dhibaatooyin makaaga yimaadaan oo ama cunsuriyad shaqo kale ama lagu faquuqayo kale dhibaatooyin ka maaragta cunsuriyada horta waxa wadankeeni Sweden ku kooban ma cunsuriyada meel walba ka jirta dunida waa phenomenon waqti badan jiray cunsuriyada Islamophobia waa cunsuriyad iyada kala gooni oo ah dadka muslimka ah marka xaqiiqatan qofku wax dhiba uu la kulmay dadku soo dhaweynaya iyo kuwa ku dhiba wada arkaysa laakiin inagu maadaama aynu marxaladda noocaas ku jirno dad muslimna aynu nahay asalkeena dad madow oo wadamo burburay ka yimid aynu nahay waa waxyaalaha aynu ugu baahannahay inaynan dib u bixin markii culayskana soo saarnay aynu kamid ahaano dadka go'aamada nolosheena ka gaaraya marka dib u imaanaya waa lagu gafayaa laakiin waa inaad hore u socotaa dadka Soomaalida ee ku dhaqan wadanka Sweden guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanka aad joogto marka laga hadlayo la qabsiga nolosha isdhexgalka aqoonta kobac intee laga bay sameeyaan
anaga hadda dadaalkeenu bilaabmay dhalinyaro fara badan oo aad wax u barata Sweden hadda laga helaa gaar ahaan gabdhaha dhalinyaradu iskuma jirto gabdhaha aad wax u barta Sweden waynu la qabsanay wadankeenu hadda joogno Sweden laftigeeda barashay nooga baahnayd in anaga barato umadahan barato haddana dadaal aad u fara badan baa ka muuqda marka ku faraxsanahay bulshada Soomaaliyeed dadaalka ay sameysay horumarka ay sameysay dhalin aad u qurux badan ka soo baxay Sweden ugu dambeyntii rajadaadu waa sidee codka aad ku xisaabtamaysaa hise ma Soomaali kaliya ma guud ahaan deegaanka aad joogto cod baad uga baahantay ani degmada aan joogo oo dhan iyo qofkii iyo codeynayo dhan waan ku xisaabtamayaa laakiin anigu waxa aaminsanahay muwaadiniinta Soomaaliyeed inay dooran karaan muwaadin Soomaali inaan awood u leenahay ka tira ahaan dadka wadanka ku nool inaynu inagu xulano dadkiina matali lahaa garta tirada Soomaalida ah ee magaalada Gothenburg degan ee codeyn kartaa intee laagtay ودور يتمن كنا قف. دور يتمن كنا قف سمالي كعودين كنا. قولوا عم بنكون رجينا يا ليلو وحن رجينا يا سومالي ذا مجال ذا سكون دقن إن حل بعنا يشان ومثلا قولها قرن كودن كسويدن سيدو كلنا أي نلوشي نهر مر بلعنا سميس. Thank you ما سنت ولا الكي. بعد ما سنت هاي داود يالتا سي وحيا هايد الليلو علي علمي وكم إذا قولها ديجان كا دقمة إنجريد مجال ذا Gothenburg ليلو وحي هاتن وشرحنتها قولها برلمانكا. waddanka Sweden waxayna ugu warramaysay stuudiyaheena magaalada Minneapolis tan kulan dambe waa Maxamuud Mascad Daawud la sida iyo nabad gali